عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشada mudan qadarinta xushmada karaamada ciisiga sharafta naga mudan ee guud ahaan laga daawanaya daafaha dunida iyo sidoo kale wadamada Soomaalidu degto ku soo dhawaada barnaamijkeena ganacsi todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa doorka carweyga ku leeyihiin ganacsiga Soomaaliland ee maanta booqanay carwada national oo kamid ah carwooyinka ka jira geega Soomaaliland kuwada ugu caansan isla markaasna waxa barnaamijka marti noogu ah maamulaha guud ee carwada national Mahdi Maxamed Cumar ugu horeyn Mahdi ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على عقبة المتين ولا على عدوان على الظالمين كدوه ولا لون كدوه هي أدبان ما سنتيه سبب مسابقتين أدبان ugu horeyn Mahdi waxaad faahfaahin dheeraad ah ka bixisaa goortii la aasaasay carwadan iyo waxyaabihii ku dhaliyay in carwadan aasaasto بسم الله الرحمن الرحيم إن عوضة وحلا أساسي شنتي بشي كوباد لبضة كونيا فريتوانكا إن waxyaabaha lagu dhaliyo waxa kamid ahaa markii aanu eegneen asaasna ku sameynay in wadanku u baahan yahay carwooyin waaweyn oo noocan oo kala ah isla markaana ay sii badanayaan population-ka Hargeysa ku nool iyo baahidooda ay sii badanayso haadirteed baan u kaliftay inaan carwada sameeyno carwada fiirheeg wax iskala laba dumara oo aan halkan aad ka salaamayo oo ugaas Axmed Cilmi iyo Safiya Maxamed Cabdi ayaa asaasay waxaan la asaasay shanta bisha koowaad 2014 muddadana ilaa inta laga furan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin oo balaaran tahay sadaka sanad oo balaaran tahay waxaad marba marka ka dambaysa ay korsi qaadmaysa een horosi marmaysa waxyaabo ku cusub oo mawru oolin ama maxaan ku rahdayay aan hore magaalada oolin ayaan keenaa way si guud waxaad u sharaxdaa qalabka kala duwan ee bulshada u keentaa horta waa si wanaagsan oo aragtaanba indhihiina macalina ku tanimka fadhinaa waa cuntooyinka xunto la yiraahdo oo kuwana ugu quruxda badan uguna qaalisan uguna dambeeyay sidii kala aragtaan waxa weeye meesha fadhiya yaala waxa yaala cuntooyin baa yaala waxa yaala gowli oo casri oo Turkiya yaala sharaxaad iyo ka daran Turkiya taala qaar Jabanisa yaala waxa yaala qaar Chinese yaala gowlihii baa yaala hurdooyinkii baa yaala dhammaan wixii guri looga baahnaa oo dhameystiran ayaa carwada national furniture laga helayaa waxaad sharaxday agabka kala duwan ee bulshada u keentaa tirada guud ee shaqaale ka hawsha carwada qaybisa carwadan inta sida maadaama inta la furan tahay carwada waxa ka shaqeysa 6 shaqaale ka shaqeeya marka laga reebo waxa externalka ama security dibadda carwada gudaheega waxa ka shaqeeya 6 shaqaale ayaa ka shaqeeya oo maamulahay noriskiina ay gaarka yihiin joogan way carwada ganacsiga national ee ku suganahay maxay kaga duwan tahay carwooyinka ka jira dalka Soomaaliland waa su'aal aad u wanaagsan walaalkay haddii aan isku dayo jawaabtaas su'aasha jawaabteeda waxay kaga duwan tahay horta markaad wax furayso waxa loo eegaa baahida suuqa taala way furan wajina carwooyin badan oo magaalada ka jira wajiran oo aad u waaweyn aad u caaniya diis markaas waxaanu eegnay maxaad kaga duwi kartaan maxaad si aad maxaan ku leeyahay customer soo jiidan kartaan waxyaabaha aanu keenno waxyaabo waxa kamid ah oo ay kaga duwan tahay waa gugulaha Turkiga waa cuntooyinka Turkiga waxyaabaha Turkiga sababtoo ah alaabta taala Hargeysa waa Chinese inta badan sababtoo ah waxyaabo qaaliya weeyeen alaabta Turkiga qaaliga darteed ayaan u soo qaadnay saan ugu hurno maxaan ku raahdaa alaabteeda aan ugu hurno inay kaga duwanaato suuqa Hargeysa ay kaga duwanaato ayaan alaabta Turkiga u soo qaadnay qaaliga waxyaabahan ku faani karnaa ayaan kaga duwanaa carwooyinkana waxaan oran karnaa waa alaabta Turkiga qaaliga iyo sharaxaad badan oo jira oo magaalada wali aan iman magaalada way waxaad sheegtay inaad 6 shaqaale ka hawlgalaan carwada kulli carwadu waa carwo weyn arkayo shaqaale badan way baahan kartaa shaqaalaha qaadataan maxaad ku xulataan والله waa su'aal aad u wanaagsan oo loo baahnaa inaad weydiiso shaqaalaha waxaan ku qaadanaa horta marka ugu horeysa waan soo xaysiinta kadib waayo maana waxaan naafici karo qofka aqoon u leh waxaan u eegnaa markaasi experience-kooda aqoontooda hadda halkii taagan tahay dib markaan soo xaysiinaa intii shaqaale timaadaan u eegnaa waxaan interview baan ka qaadnaa taxan kama qaadno laakiin interview baan ka qaadnaa habka customer-ka uu soo dhaweyn karaan u eegnaa sidoo wax u iibin karaan u eegnaa firfircoonida inta ay xadiga firfircoonida ku jirtaan u eegnaa markaan anaga iyo owners-kan super badhigno aan dadka interview ka qaadnay dib u eegno wixii halkaan nooga soo baxa ayaan ku dhaqaaqnaa oo si cadaali ah anyway waxa dalka ka jira carwooyin fara badan oo soo badanaya imika muddooyinka u dambeeyay balse waxa jira qudbad joog badan oo kaalintii qaranka Soomaaliland ay kaga jireen gabay isla markaasna aad ka mid tahay qudbad jooga carwadan maalgashaday kama hadiyaha ama ka carwo national maxaad ugu baaqaysan dadka aan wali maalgashan Soomaaliland horta walaal su'aal aad wanaagsan su'aashaas waa su'aal muhiim ah aan ugu helay way markii hore ma ka boodayba inaan ahay inaan raahdo waxa carwadan iskale qudbad joog inaan raahdo
waayo qurbajoogtu waa ta keliya tee ugu muhiimsan ee dalka wax ka qaban karta ee dhaqaalena ku soo kordhin karta waxa horta ku baraarujinaa dadka aan baraarugsanayn ee dadka qurbiisa ku sugan ama haba soo noqdaan ama ha magnaadaan war dalkan waa dalkiinii hooyo waa dal wax ka qabsan kartaan waa dal dhaqaalihiisu xoogan yahay wixii afka laga yiraahdo waa halkiisa laakiin markaan eegnay waa dalku dal dhaqaale la weeyaan wax soo saarna leh aad ka faa'iideysan kartaan marka carwadan lafteeda wax laga aasaasay waa qurbaha marka waxaan u leeyahay intiina ku haweyna waa ku fiicantiina oo ku saxsantiina hawshiina wada intiina aan war haynin ee qurbaha kaga maqan war wadankiin dib u soo laabta hawlahan oo kala aad uga baahan iyo fursado kale oo shaqo ayaa jira taas aad kaga faa'iideysan kartaan u soo laabtan way waxa dalka Soomaaliya ka jira sixir barar baasan oo kolba soo noqnoqda dhibaatada weyn ee sixir bararka soo celin karta maxaan hor karnaa su-aashaasi aad bay wanaagsan tahay inkastoo dadka loo baahna dadkii dhaqaalaha tooska u barteen su-aashaa la weydiiyahayd haddana waxaan isku digi karaa kolley intii maxaan ku dhahday aan ka jawaabi karo waxaan isleeyahay anu horta laba mid baan u qaadi karaa waxa weeye horta dadkeenii oo isticmaala lacagaha qalaad oon lacagtoodii danaynin lacagaha qalaad markaan leeyahay macnaha doolarkiiba amka aad badan dadkiiba doolar isticmaalaya baskiiba doolar lagu bixinaya wax kasta wax lagu bixinaya doolar sababtaas oo keentay in sixir barar dhaco maxaa yeelay markii lacagtii kaashkii ee Soomaaliland lahayd aan la isticmaalin wax meeshii sixir barar bay imanaya ta kale isleeyahay way keentay sixir bararka waxa weeye central bank oo si efficiency aan u qabsan shaqadiisa maxaa yeelay central bank wuxuu ku shaqeeyaa monetary policy macnaheedu waxa weeye marka uu doolarku suuqa ku bato wuxuu soo daayaa xaddi doolara markuu ku yaraadana markuu doolarku suuqa ku yaraadana wuxuu soo daayaa doolar markuu ku batana doolarku xireeya marka ama kaashkii u xireeya kaashka markuu batana kaashku xireeya markuu kaashku yaraadana uu soo daayaa sidaa darteed baa central bank ma qabsado hawshiisii hawlahaasi waxa la wareegay sarifyaalna si loogu tagalo ma maamuli karaan taas ayaa keentay sixir bararka marka way أنا وصلنا قلنا عروضنا نشنا وما هيسي يهمي الذي عروضنا. خلصان كوب الشاقي وحرقة كوب الشاقي عروضنا واحد جد أنت عروضك لا علابو إن قاليا مكاني هيسي جي وحوي ما دام ضدكنا لك علابين أو رأي جو تسع سنتين ليري وحوي أنا نميل تاجنا إنه مرحلة الجروح بدني هي إن أنت هوا حن وما فكر يوم حن قرح ضاي إن أنا وحرصي طلابسنا أو نبراتي ووينه كلا أكفرنا مجالوين كلا كفرنا مركا وأنا نصيحه إنه سيرفيس كأما تكانوا قبنا نشعر كنوجا برتينا نكرسي قامو أنتين سكرسي قامو بريس كنا عم آد وكانترولو أيام شعلها هي أنا عروين ووين وكلا فرنا يقنع سجمالها كلا ببنان واحد شراء شقوين بنان بشراء أو عروضنا نهين وضو تكاد وبنان بشراء كل فتوى حدودنا أنا نوحيان كقبنا كرك قبنا أن تارجت كيجو أنا بلارينو أنا عروكها تكبلارينو أنا سومالند أنا وحكي سكرين فعله. وين سنوقدي واحد رجعت Soomaaliya badak waxay ka wadaan shaqaale laan isla markaana baahida ugu weyn ee qaban waa shaqo laan ma jirtaa dhalinyaro in carwadan shaqaaleysiis isla markaana ka kafaysay baahida shaqo laanta waa faahfaahsan tahay horta waa runta wadanka shaqaale laan ba ka jirta waliba aad u baahsan anu waxaan oran karaa horta dhalinyartayada isku haysta shaqo laantan way qof wax kasta oo uu baahdo uu heli karaa oo capitalka inuu capital lacag weyn ku bilaabo maaha waxyaabo hoos u ka bilaabi karaa shaqo meel hoos u ka bilaabi karaa waxaan aaminsanay horta koob dadkeennii ayaa jecel shaqo laantan waayo shaqo xafiis ama shaqo hawl weyn uu buu ardayga markuu soo jaamacad ka soo baxo ayuu ka bilaabayaa way jirtaa shaqo adan soo noqdo national furniture way jirtaa shaqo abuurkaas uu jira dhawaan waxaan qaadanay laba shaqaalaha markaanu eegnay ama eegnay shaqo laanta ka jirta sida loo canaanayo carwooyinkii ama dawladda ama loogu canaanayo shaqo abuurka kama qayb qaataan salary laba shaqaalaan qaadanay iminkana waxaan ku tala jirnaa inaanu laba kala qaadano haddii ilaahay yiraahdo si aan uga qayb qaadano yareynta shaqo la'aanta dhalinyarta way sidoo kale su'aalta hoos imanaysa jeclayna ku weydiiyo dhalinyarta Soomaaliland ee dalka wax ku baratay doonaysa inay dalkooda horumariyaan doonaysa inay furato business ama sidoo kale ganacsiga xor u leeyahay ku dhiirigelinaya buu soo jeedin waxaan ku dhiirigelin lahaa horta waxaad samaysaan kow waxaan waad ku fikirtaan inaad wax abuurto haddii adiga kaa soo go'do inaad hal abuur noqoto ood wax abuurto ilaahidankiyaana $1 aanad haynin ood go'aankaa leedahay waad samayn kartaa waxaad ku adkaysataan inaad qaadataan go'aana inaad wax wadanka kusoo kordhistaan ood abuurtaan وأنا مسنا مركا إن لصمين كرر لليرت شقة أبو كا أما محن كره ضايع أي ودن كوسو كردين كرتو أو عروين كون كوين صمين كرتو ولا وده حدي لسكوت تجو أو أنت صو محن كره ضايع ودن كون كشير ويا لسكوت ضعفي ويوم من كليد وحسل مترو وحول بور شير نقول أنت صو أرضي أما أنت صو لليرة وشير سمستي أو فكرة عصوبة هرجيسة لتمادا
waxaan anu aaminsanahay inay kaga caalamaalayso marka waxaan aaminsanahay dhalinyartaasay wadankiina ku hirtaa waanad ka samayn kartaan waanad ka malayn kartaa ma leeyahay way gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa ama fursadda ugu dambaysa ku siiyo ma jirta cidaad baaq u daraysa amba sidoo kale hadday tahay customerka amba cid kaloo gaaro fariimo diraysa aad baad uga mahadsan tahay horta aad baad uga mahadsantahay barnaamijkan anoo kaga faa'iidaysanay markaa barnaamijkan waxaan leeyahay customerkayga iyo khaaska iyo inta aan weli aanan saragba waxaan leeyahay carwada nationalta kusoo dhawaada alaab casriya idin keentay alaab qaaliya idin keentay oo tayale oo wanaagsan barayskayguna uu aad u hooseeyo marka waxaan leeyahay intii customer ah awalba waa iska joog tahay waan isla xidhnaa waan isnaqaanaa soo dhawaadan leeyahay oo soo dhawaada inta aan magaalada ama ka baxsan ama wadanka gudihiisa ku jirta Hargeysa ka baxsan waxaan leeyahay carwada national waxa uu kaaleedaan barays jaban alaab tayale uu kaaleeyaan leeyahay waa fariinta aan dirayo anu barnaamijka ka faa'iideysanay way aad iyo aad u mahadsantahay gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay waxaan si weyn ugu mahadcelinaa carwada national furniture oo kamid ah carwooyinka ugu caansan ka jira geega Somaliland sidii barnaamijkeena martida noogu haa maamulaha guud ee carwada national furniture Mahdi Maxamed Cumar aad baan kaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga aad baan kaga mahadcelinaa sidoo kale waxaan sheegnaa mahadnaq gaar ah hayaa cameraman-ka isku hawlay injineer Cawl Cumar Caabi Cawlkiiko barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigoo Baxnaan Nur Cabdi Baxnaan Ducaysana inta barnaamijka lamid ah ku kulmi doono ilaa tusan iyo toobada Allah meel ka soo